الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. sidaa walaalkeen baa inoo sheegay waxaa inaga muuqda diin jacayl, khayr jacayl, masaajid jacayl, waana nicmo weyn uu ilaahayna siiyey. ilaahay inaan ugu mahdino weeyaan. dad badan fadhiga maskiidka ma karayaan. ilaahay jalla wacalaa wuxuu ina jeclaysiiyey inaan masaajidda fadhiisanno, oon masaajidda ku ictikaafno, oon ilaahay hadalkiisa aan qadarino. maaha shaqsi waxaad u timaadeen, waa ilaahay kalaamkiisa, waa ilaahay diintiisa inaan maqallo, inaan ilaahay kalaamkiisa maqallo, oo diinteennaa macaana ilaahayna siiyey aan isku baraarujinno. waayo waa luqmaan alxakiim baa lagu yidhi diintan iyo xikmadan halkeed ka heshay baa lagu yidhi. luqmaan waa ka ilaah kaga warramay qisadiisa fi suurati luqmaan. wuxuu yidhi majlisna aniga fadhiista oo waxbaan ka qaataa, majliska helena anaa la fadhiisto oo waxbaan siiyaa buu yidhi. yani majliskan anigaa fadhiisanayo waxbaan ka dhagaysan, waan ka baran, waan ka faa'iidaysan. majliska aan is leedahay waad dhaantaana intoon la fadhiisteen wixii aan ku dhaamaan u sheegay buu yidhi. sidaasay markaa xikmadan ilaahay igu siiyey buu yidhi. nin xakiima buu ahaa. xikmadiisa waxaa ka mid ah dardaarankii ilmihiisa uu siiyey. waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay sida ubadkiisa u tarbiyadaynayay. marka majaalistan iimaaniga ee cilmiga ee masaajida dhexdeeda inooga socda khayr badan baan ka faa'iidaysanaynaa. diinteenna macaan baan isku baraarujinaynaa. mar walba in laysku nasteexeeyo oo la isbaraarujiyo, oo caamada iyo culummadu cilaaqo wada yeeshaan, oo mujtamaca muslimiintu masaajida ay ku xidhnaadaan. waataan ku gaadhayna horumar iyo midnimo weeyaan. sidaa darteed buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi diintu waa naseexo. ayay naseexo u tahay baa nebiga lagu yidhi. ilaahay sidee buu addoonku ugu naseexaynayaa? markaad ilaahay jalla wacala aad garatid, ee aad caabudid, ee cibaadadii ilaahay aad u badhax tirtid, ee dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad ilaahay ku caabuddo, ilaahay waad u naseexaysa. kitaabka ilaahay jalla wacalaa si aad ugu naseexayn, say diintu kitaabka naseexo ugu tahay. marka qur-aanka ilaahay la barto, ee la akhriyo, ee la tadabburo aayaadkiisa, ee qur-aanka ilaahay jalla wacalaa marka la akhrisanaya laga fikiro, ee wixii qur-aanku macruuf uu ku farana aad la timaadid, wixii munkare qur-aanku uu kaa reebana aad ka reebtoonaatid, wixii qur-aanku xallilayna aad xalaashatid, wuxuu qur-aanku xarimayna aad xaaraan u aragtid. aad qur-aanka ilaahay baratod ummadda aad bartid, sidii loo fidin lahaa, loo bari lahaa, loogu dhaqmi lahaa, layskugu xakumi lahaana aad ka shaqaysid. nacam, kitaabka ilahay waad u nasteexaysid. rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam si aad ugu nasteexaynaysaa rasuulka ilaahay. haddaad rasuulkiisa adeecdid oo wixii wanaagee nebigu ku farayna aad la timaadid,
wixii munkar iyo bidc iyo khuraafaad iyo shirkiyaadana aad ka reebtoonaatid waad u nasteexaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waatii nabigeennu uu jeclaa inuu mar walba ummadiisa ka arko waxa uu nabigu jeclaa inuu arko ummadiisa oo ilaahay caabudaysa ummadiisa oo ilaahay baryaysa ummadiisa oo ilaahay rajaynaysa ummadda u socota sidii ilaahay uu rabay markuu arko nabigu uu farxi jiray calayhi salaatu wasalaam kaa'imada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad taaca lagaa helo samci wataaca liuli lamri intaanad ku arkin wax sharciga ilaahay jalla wacalaa ay kaga baxayaan ood u sabirto ood u ducayso ood wixii macruufa aad ku adeecdo waad u nasteexaysa caamada muslimiinta seed ugu nasteexaynaysaa haddaad qur-aanka ilaahay soo dejiyo diinta naseexada addiinu nasiixa buu nebigu yidhi waa jawaamicu lkalim diintu waxay naseexo caamada ugu tahay waxa weeyaan markaad xaqi ilaahay aad garatid ee xuquuqdii bini aadamkana aad iska ilaalisid ee ixsaan lagaa helo ee dadka dabeecad wanaagsan aad kula dhaqantid ee wanaag adigu aad u samaysid dhibtay kuu geysanayaanna aad iska cafidid kii ku wanaajiyena wuxuu nebigu yidhi kii ku xumeeyana wanaaji kii ku dulmiyana iska cafi buu nebigu yidhi ka wixiisa kaa xarimana waxaaga sii kama aragtaane xumaan kugu sameeyan adigu wanaag u sameeye diintaas diinteenna islaamka laga bilaabo ilaahay xuquuqdiisii ilaa khalqiga ilaahay kugula abuuray ee kula degan xaqoogii diinta kuu sheegaysa haddaad ku dhaqanto noloshaadii adduunyada waxaad ka samaysatay janno jannay adduunyadu kuu noqonaysaa janno imaam ghazaali raxmatullaahi calayhi ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa jannada adduunyada sirta nolosha dadku maanta ayay raadinayaan qaar lacag bay ka raadinayaan qaar aqoon bay ka raadinayaan qaar aqallay ka raadinayaan qaar masab bay ka raadinayaan qaar dhoof bay ka raadinayaan sirta nolosha waxay ku sheegeen culimmadii rabbaaniyiinta ahayd jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa waa inaad garataa ilaahay garo garashadeed garanaysa ilaahay garashadii nebi maxamed iyo saxaabadu alla ay garteen waa inaad garashadaasa ayaa micyaaruulmacrifa ilaahay macrifadiisa micyaarka la doonay ummaddu inay gaadho waa iimaankii nebi maxamed ilaahay qalbigiisa uu dhigay iyo iimaankii saxaabadu nebiga ay ka qaateen taasaa micyaaruulmacrifa la yidhaha micyaaruuliimaan waalmu'minuuna kullun aamana billah وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنه صحابة إيمان كوغو هلك اللدوني إنه قاري قرآنك إلهي كشيغي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلهي قلبي وغوحو لقي كلمة التقوى ابن عباس وحيري وكلمة التوحيد ويان كلمة التوحيد وكانوا أحق بها وأهلها بإلهي يري إنا كلمة إيمانك إخلاصك قلبك إنا كقل لدي سنون قلبك دقننا بإلهي يري أهل بيوها ينو حقنا وأولها ينو أقل من بإلهي يري وإذا قيل لهم الناس آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيدا كواس إلهي أرميين marka u rumeeyeen la yiraahdo baa ilaahay sida kuwaas ilaahay u garteen ilaahay u garta kuwa mithaalka loo soo qaadanaya waa asxaabtii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka xuquuqda ilaahay nagu leeyahay xaq ugu horeeya waa maxay waa ilaahay macrifadiisa jannada adduunyaduna waa ilaahay garo jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa oo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa waa kii ku yiri markay muuminiintu ay jannada ay galaan ayaa ilaahay jalla wa ala ku oran doonaa turiiduna shay'an azidukum marabtan maaragtaan waxaan jannadan ahayn oo inaga maqan oo inigu daro markaasay muuminiintii jannada la geliyay oranayaan alam tubayyid wujuhana ya rabbi miyana wajiyalkayga noo iftiimin wa tunajjina min an-nar naartaadina miyana naga badbaadin oo naga ilaalin wa tudkhilna al-janna jannadaadina miyana nasiinin ma wax ka maqan intaas oo ka baxsan oo nicmadan ka weyn baa haray markaas la oran doona ha fayakshifu alhijab dadna markaas ilaahay kashfiga ilaahay iska qaadaya xijaabka fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadar ila rabbihim bu nabigu yiri ahla al-jannah lama siinin waxa dooga looga kalgacayl badan yahay ilaahay tabaaraka wa ta'ala jamaalkiisa iyo kamaalkiisa daawashadiisa jannadii dhanay bay halmaamayaan jannadii bay iloobayaan naciimtii jannada ay halmaamayaan marka ilaahay wajigiisa iyo daatadiisa iyo quruxdiisa iyo kamaalkiisa markay arkaan
lidaalika culamadii rabbaaniyiintu waxay yidhaahdeen war adduunyada ninkii janno doonayo waa ilaahay garo garashada soomaalidu ilaahay ay taqaano maaha ta la doonayo waa garashadii saxaabadu ay ilaahay u yaqaaneen soomaaligu ilaahay waa naqaanaabuu ku odhan laakiin maskiidka markuu ka baxo waxau doonu iskaga hadlay dadkeenna maanta waxaad moodaa maskiidka markay soo galaanna in la yidhaahdo muslim baa tahay dibadda markuu u baxana waxaad moodaa halkuu kabaha ku gashanayo ayuu diintiisina ku reebaa war masaajidka markaad soo gasho si aad ilaahay ugaga baqayso eed muslimiinta u salaamayso eed muslimiinta u ixtiraamayso ee dadka aad ugu naxariisanayso ee maskiidka xaqiisa aad u ilaalinaysid ee laba maskiidka dhexdeeda adduunyo kaga sheekaysan haddaad aragto aad u leedahay war meesha waa maskiida ilaahay ka xishooda soo ma nidhaahdo mid maskiidka wax ku iibinaya haddii la arkana waxa leeyahay war meesha waa maskiida dibadda ula bax waxaad iibinaysid qof baahan haddii maskiidka laga arkana waan u naxariisanaynaa diinta masaajidka dhexdeeda aad ku haysatid ayaa la doonayaa inaad dibadda aad ula baxdo diinta ilaahay naga doonayo eed ilaahay aad ugu nasteexayn ee nebi maxamed aad ugu nasteexayn ee a'immada muslimiinta ugu nasteexayn waxa weeyaan waa diinta markaad maskiidka soo gasho aad danaynaysid eed jeceshahay eed qur-aanka akhrisanaysid eed ducaysanaysid ee muslimiinta ixtiraamaysid ee culammada si fiican aad u salaamaysid ee culammada aad wax ka dhagaysanaysid ee maskiidka miskiin markaad ku aragtana aad ugu naxariisanaysid ee maskiidkana dadka aad ku ixtiraamaysid diintaasaa la rabaa inaad dibadda ula baxdo ma aha sheekada dibadda taalla maskiidka la soo gale bal waxaa la doonayaa diinta masaajidda inoo taalla inaan dibadda ula baxno dibadda ku muujinaa laynaga doonayaa masaajidka ayaa leh magaaladana hada huwa sida aad u leedahay maskiidkan ilaahay baa leh markaad iman dhar fiican baad u soo qaadan waa soo dahaaro qaadan kabahaaga meel fiican baad dhigan dadkana waad salaami si adaab iyo ixtiraam la maskiidka ku soo gali waad ducaysan oo baahidaada ilaahay baad u sheegan nin taajira ayaa maskiidka soo galoo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisibuu ku waayey xafiiskiisiina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi maskiidkeebuu ku tukadaayo maskiidka halkaa ku yaallo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkiibuu u dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniina iska jiro ilaahay ku xidhan moogtaha oo ilaahay cilaaqa la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ile dhanacu ka soo galay buu arkaye markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annakay ahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataaye maxaad gacmaha la taagtaagi ma annakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu yidhi ya allah yaa muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhex haysatid ayaa la doonaya inaad dibadda ula baxdo ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysay ilaahay eed ugu dhex baryaysay eed bini aadamka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa maskiida dibadda ula bax aad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaahdid ilaahay bay arkaayo ilaahay bay maqlaaya yaa arkaayo laa tudrikuhu al-absaar wa huwa yudriku al-absaar wa huwa al-latiif al-khabiir khalqigiisa meel kastay joogaan ka u jeeday arkaya waa ilaahay haba ilaahay kama qarsoodo يعلم سر وأخفى
waxa laabtaada ku jira waa og yahay walaalkay adiga sirtayna dhaxmartay ilaahay waa og yahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo marka labadooduba mushrikiina oo Makka ay joogaan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaala ana nabigu waa qafaasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodiba meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaas ay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay tu aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeeladaan ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan intu saban oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayyah ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaca buu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمكاس كتور تورا إنه فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصاق على عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر عليه مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواك جاني قارن قرت كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي إنه أجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شر أمور سعودي خير ما سعودي markaasuu ayaa rasuulka loo sheego lagu nabi Allah Umar bin Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu ii soo galiya loo soo galiyay xaadu timid buu ka yidhi waxaanu imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sideeta maxay tahay hada wuxuu qabbaha Allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saudi 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adigiya Safwan bin Umayyah saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fariisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aanu dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intoon tagaan Muhammad aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabo haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah baa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtana ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waan rumayn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay ka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay
dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisay u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan maaha ilaahay isagaa ka taliya koonka tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab وامرأته حمالة الحطب امرأة أبي لهب أيها النبي نوتمد عليه الصلاة والسلام يضع دقح سدته أبي بكر بيوتمد وهل كان فردية رسولكنا واقف فردية صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسولك لنا عسكو هيان مركز إلى هاي أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونتها وقبل يجي يقول صدري قبل بقرآن كواي ستاموكت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا أنرك لها بيتري بقى حيسك نستوى ماذا حن بشخص لها بيتري مركز كان نقطة أبو بكر نبي ساوي يا رسول الله ما ينكو أركين ما أنا أرجع يقول أركي لهيد بإلهك قادر يقولي إنه هبل محو حكو أركا إيش وحكو أركا من لنا هاي ما يأمر كلا يبغى حكو أركا دكتو وحكو مغلا ما دكتو أمر كلا يبغى بانتاين مقاشو لوك تادو إنه سعوت إله أمر كيسو باهنتا خالق وإله بركا إله معرفة دي سوا واجب قف كسر مسلم على قرب إله ونبو قرطو تصرفاتك عالم كلا بس كلا marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ay ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisii oo dhaba noqo khulasatul qur'an marka culimadu ka warameen khulasatul adyan وحلي وحي الدين سمادا كسو دغتay oo dhan khulaasadii waxa laga dhigay quraanka kariimka quraanki kariimkii baa la soo khulaaseeyay suuratul faatiha khulaasadii quraanka laga dhigay suuratul faatiha ayaa la khulaaseeyay labada aayadood bay culimadu isku keeneen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in خلاص قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ilaahay jalla wa ala waaka quraanka kulaha salaada waanu qaybiye anigi adoonka ayaa kala qaybsanay oo salaadu وسورة الفاتحة مقعيقة ويان سورة الفاتحة صلاة بالليلة فاتحة الليلة القرآن بالليلة سبع المثاني بالليلة سورة داس وسورة النبي يقولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسودقين فرقان لكم توراة لكم يسودقين قرآن كريم كان سورة لمدة كم جرتب رسولك يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحيري قرآن كردن بمركان يغني وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا كسو أرتي إياك نعبد وإياك نستعين وأمركم أضنك أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركات ترادد الحمد لله رب العالمين مركو أضنك يرادو إلهي بالحمدني عبدي أضنك يجيب يقوم مهديي الرحمن الرحيم مركات ترادنا أثنى علي عبدي إلهي بالأضنك يجيب أماني مالك يوم الدين مركات ترادنا مجدني عبدي أضنك يجيب وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركات ترادنا إلهي بالا هذا بيني وبين عبدي تاسياني أضنك نقد حيسا الحمد لله رب العالمين مركات تري حمدني عبدي إلهي بالا أضنك يبقى حمدي الرحمن الرحيم مركات ترادنا الرحمن والله الرحمة ديسو أدونك أنت اللي جوكتي خلق قردن أي وذا قاعدي ويان الرحيم أن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقدقي ويان أثنى علي عبدي أدونك وي أما نبي إلهي لي هي مالك يوم الدين مركات رادنا يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يطلب إسكالها هايو مركات رادنا وحو إلهي لي هي مجدني عبدي أدونك ويني إياك نعبد وإياك نستعين مركات رادنا إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقد حيسا وهجاج أديكون أي عبد وأدونك يجي دبا ينقو أنا جنا كلمة هاي جرجار كاجي يقودا
sidaan doonaya yeel sidaa doonaysan ana ku yeelay sirta noloshu halka bay ku jirtaa dhoof ha ka raadin qaxooti ha ka raadin hay'ad loo shaqo tagana ha ka raadin wadankeena uga shaqo fiican waa ka hay'ad u shaqo taga hay'ad buu hebel la shaqeeyo hay'ad wadagii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacad ay qalin jabiyeen hay'ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore hay'adu ka qaadatay يا مسكين عبد الله بن حذافة رضي الله عنه markii boqorkii Ruum soo xiray waxa loo bandhigay laba shay in boqortooyada Ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليل تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيسكي باكو يري ciidanka ninka wata waa nabi maxamed ardaydiisi arday kamida hanaga dilin nasraaniyada u bandhig waxa li wuxuu diinta ku doorsan karana hal siiyo si nasaarada islaamka ugu socota usadun an sabiilillahi ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nabi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaalo iimaankoogu qalbigu dul yaala halku dul yaala qalbiga wa alzamahum كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ما هم من عرب كدولي الله من ما أديال لا دافسن كرماها ومن قلبك إيمانك فريستي وين إلهي كتعلق سن هو يا بقرك ما كل تاين النصرانية ده سوا قلي بقرتوي ده أنا كلا بركة بنقصينه مركز وقصلي وعند بقرتوي ده هذا أورد ما يسترون وحبل لقى الريبين يا بقرتوي ده عربي أي هاي ستو haddii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelin buu kay wallahi ma fa'altu buu darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelay buu boqorkii baa ku yiri waan ku dilaynaa dawaaba nin xidhanahay buu haday dilaysan waa nin xidhanahay dhexda alxusnayn bay sugayaan iyaku imma an-nasr wa imma ash-shahada imma inay guul helaan oo tamkiinay helaan oo ilaahay gargaarkiisa loo ballan qaaday indhahooga ku arkaan imma inay shahaado helaan ee firdaws ay tagaan nolosha adduunyada waxba uma arkaan waxa la sameeyay marka boqorkii amar wuxuu ku bixiyay dariyo waaweyn oo saliid oo karkaraya ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiinta inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonay nabi yiraahdeen markaas la qabto labadii basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah sagiba marka la dulkeeno oo xidhan kan noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaalow markaas uu ma gaaloobayo damaxal loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dulkeenay dhariga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas oo ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba inta mar halka la dulkeeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoon haysano ka ooyaya buu kaydi naf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka inta la dulkeeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kaydi boqorkii baa yiri kan dilgiis waxa noo tari maaye haska sii deyno waayay sii daaya ma kula tahay buu kaydi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii deyne markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada sagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yiri hadii muslimiinta ila xidhan aadii sii deynaysid haa waan ka dhunkan hadii kale ka dhunkan maayo buu ku yiri markaas uu waxa iga dhunko markaas uu magaal bar madaxa ka dhunkada anoo asxaabtii nabi maxamed kamida ragga uu sii deynaya Soomaaliya waa ka dhunkan ila bariba jihaad baan ku soo celinay kala bixinayna ajiib asxaabta rasuul ay soo galeen Umar ibn Khattab baa soo dhaweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yiro raggii la socday baa Umar ku yiri
cabdillaahi banu xudaafa ha dhunkano ha salaaminoo ha soo dhowayn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday innakana hebel dibaddu u baxay hebel dibaddu u baxay hebel hay-ad buu la shaqeeyaayo waa iskugu toostay gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa cumar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin cumar baa yidhi balukaadii ha warayste sidee ku dhacday inaad nin gaala madaxa ka dhunkataa wuxuu yidhi iyakaa ku soo daayay buu yidhi si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay uu cumar uga bi'iye buu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yuqabila ra'sa cabdillaahi banu xudaafata wa ana abda'u bidalika buu yidhi qof kasta oo muslima waxaa xaq ku abuu yidhi cumar in maaragtana cabdillaahi banu xudaafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yidhi anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonaya markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay siday doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ee quluubtoodu taacadda ilaahay iyo dikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihuu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allahi qiila ilaahay baa ku warramaayo ku leh war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaystaa qalbigu qur-aanku ku raaxaystaa qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa qalbigu taacadda ilaahay buu ku raaxaystaa nacam nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa odhan jiray 5 min dawaa'i alqalbi 5 ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawat alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaam al-layl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarruc cinda as-saxr iyo waqti as-saxr xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wa ala lana munaajoodo wa khalaa'u al-badni iyo calooshaada mar walba badnaata wa kathratu as-siyaam bi culimadu leeyihiin inuu qofku soonkiisu bato wa mujalasatu as-saalihiin dadka war wanaagsano la fariisto shantaas ay culimadu yiraahdeen qalbiga dawaysa tilaawat al-qur'aani بالتدبر لكن القرآن ما شاء الله ونسك آخرين تدبر كيف أنا مقال أصحاب رسولك رضي الله عنهم لقى يابا هل آية القرآن سيدا هبينك أقول علينا يا أبو برياجي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سفيان الثوري رحمه الله آية القرآن كو هبينك مركو صلاة الليل كي حدي مركو قاري وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعيسى إلهي كملينين أي كلا كل ما بنك قيامه هدو لها خير بان وتا ما خير كيسي ماها أرنتو يكوين تاي صلاة بان وتا صلاة دوالو قبت بهذا لا شك لكن مؤمنكو هلك أمركو بنك قيامه إلهي هرجو اقصدو صلاة يسون كيسي ايجي مايه إلهي الرحمة دي صوبو ما انت ايجي يغفك مؤمنكو إلهي الرحمة دادون بوليه آيات القرآن كواغو قبريه أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركو نبي أنه حنون صدو حنونك لا دعي أي نبي قال له يري صلاة دي باتاق النبي الله مركاسو النبي قال أبو بكر وشيغا ومدى صلاة كبحيه عائشة رضي الله عنها وأكتاقني النبي آيات كتري إن أبا بكر رجل رقيق أبو بكر وأن قلب جلع سويان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء هدو قرآن كأخرينا وهنتي سآيا قرآن كغالب نقطة وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه صلاة الليل كي هبينك مرقو مسكيت النبي الصوق علي وعوارك إن ير وسورة الطور كنت كان قيام الليل كي قرآن كي سيبو دقيستي
markuu gaadhay yarkii yaraa inna cadaaba rabbika lawaaqic cadaabka rabbigaa waa kii dhici doona weeyaan aayadda cumar markii uu gaadhayna dhulkuu ku dhacay cumar binu khadaab intoo la qaaday ayaa gurigiisii la geeyey bil ku dhan buu xanuunsanaa xanuunkiisa meeshuu kaga yimidina lama ogeyn miqdaad radia allaahu canhu saxaabigii la odhan jiray miqdaad ibn alaswad habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tidhi sidaasuu u galgalan jiray sidaasuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaasay ku tiri war maxaad la galgalan maad bugtaa maad seexatidaa markaasuu odhan jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxada iga qaaday buu odhan jiray yakhaafuun qur-aankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakur bay ku akhrinayeen laga yaaba hal aayadoo qur-aana habeenkaa dhan inuu ku soo jeeday nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii abi bilaal baa u yimid ee salaaddii markay gaadhay yaa rasuulallah salaaddii baa lagaa sugayaa waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas garhkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wejiga uu dhulka ku hayna way qoysay markaasuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka igu soo degay waylun liman qara'ahaa walam yatafakkar ina fii khalqi asamaawaati waalardi la aayaatin liuli lalbaab aladiina yatafakkaruuna fii khalqi asamaawaat ila aakhiri suurati aali cimraan aayadahaasaa xalay igu soo degay buu nebigu yidhi ninka aayadaha akhriya eenan tadabburin een tafakurinna kaasi uu khasaaray buu rasuulku yidhi tadabbur saddex camal markaad hayso haddaad qalbigaaga khushuucaad ka weyday bay culimmadu yidhaahdeen qalbigaagaasi uu dhinsan yahay orada soo daweeye qur-aanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid qur-aanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexdaa marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay kaa daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimmadu leeyihin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilahay aan la hortagin qiyaam alleyl waa simaau saalixiin in habeenkii la kaco allah ina siiya kulligeen kii ka hadlaba dee kii sifaadka uu wanaagsan nagala hadla ha u malin inuu isagu sidan yahay may hadalkaan waxaan uga hadlayaa inay aniga nolosheeda yimaadiin baan doonayaa iimaanka waxaan uga hadlaa iimaanku inuu ziyaadaan doonayaa salaada waxaan uga hadlayaa salaad xaqiiqa ilaahay inuu siiyaan doonayaa sifaadka wanaagsan waxaan uga hadlayaa sifaadka ilaahay inuu siiyaan doonayaa wallaahi umaan fadhiisan dad inaan wacdiyo anigu waxaan halkaa u fadhiisan naftayda inaan wacdiyo qiyaam lleyl xasan albasri raximahullah nin asmara buu ahaa oo laakiin wejigiisa nuur ka baxayo markaasaa lagu yidhi yaa sheekh yaa abaa saciid baa lagu yidhi yaa abaa saciid waa sidee baa lagu yidhi dadka waad ka nuur weyntahe wuxuu yidhi saacadaha ay hurdaan ayaan ilaahay la munaajoodaa buuhi anigu ma doonaysaa wejigaagu inuu nuuro haa saacadaha dadku ay hurdaan kacow walow 2 rakcad ha noqotee 2 rakcad tuko walow rakcadda witridana ku daro witridaada dib u dhigo markaasaa shurafaau nnaas dadka maalqabeennada iyo dadka madaxda iyo dadka tujaartu ay dhaleen iyo wujahaau nnaas baa iman jiray majliskiisa waxaa lagu yidhi yaa xasan yaa ayuha alimaam dadku agtaada maxay ka soo doonaan baa lagu yidhi madaxdii o dhan baa ku imanaysee wuxuu yidhi waxay haystaan baan ka kaaftoomay waxaan haystana waa u baahdeen buu yidhi waxay haystaan baan macnaa adduunyadooda ma qiimeeyo anigu lacagtooda ma qiimeeyo qabyaaladooda ma qiimeeyo siyaasadooda ma qiimeeyo anu ilaahay baan qaabilay cilmiga ayaan u jeestay aakhiradan u jeestay diintaan u jeestay jannadaan u diyaargaroobayaa naar baan ka cabsanayaa ilaahay xaggiisaan u dhaqaaqay markaa waxay haysteen markaan faraha uga qaaday waxaan haystana iyakaa u baahday buu yidhi والتضرع عند السحر مؤمنك waxaa laga rabaa habeenkii saacadaha waqti saxarka inaad ilaahay la munaajaat la maxay munaajaat ya allah albaab kasta u xidhmay albaabkaaga furan ilaahu naxariistaadaan u baahana waa saacadaha ilaahay jalla wa ala uu nabigu sheegay samada adduunyadu yimaada nuzulan kama yaliqu bijalaalihi markaasuu ilaahay odhanaya ayaa wax weydiisanaya han siiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa dembi dhaaf doonaya dembigiisa han dhaafe haddaan saacadaha kacna ka warramo ilaahay barino soo baahi ma lihin
ساعدهاس مناجات هبين أيو النبي صلى الله عليه وسلم مركو قيام كيو بلابي أيو النبي قال لبا آيادود أو كليا سدو وعل علينا أيو وقود الله رسولك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم لبدا آيادود آياتنا waxay ku jirtaa suuratul maa'ida awaakhirkeega aayadna waxay ku jirtaa suuratu ibraahim laba nabiy ulul azmiya hadalka banka qiyaama ay ku orani doonaan ilaahay hortii tabaaraka wa taala ayu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa nabiyullaahi ciisa alayhi salaam banka qiyaama marka la joojiyo isagii hooyadii ee la keeno reer bani israa'iil oo wixii isaga dabadii yimiday oo dhan isagii hooyadii qaarkood ilaahay ay ka dhigteen caabudayeen ayaa banka qiyaama la keeni deedna waa ka ilaahay weydiini doona orani doona yaa ciisa ibn maryama a anta qulta linnaas ittakhiduni wa ummi ilaahayni min duni illah nabi ciisa ya ciisa hatta ya nabi allah la oran maayo ya rasuulullah la oran maayo ya ruuxullah la oran maayo ciisa ibn maryama war ya ciisa ina maryama baa la oran doona maada ku yiri reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii إلهي نقدك نعبد ماذا كسويري قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بنكا قيام النبي عيسى اسكب بري يا أولياء مي إله حمان ذيك كهوفا كما أورنا نقول أمر كي أدي ديبتو من نقول قرسي إيه أها ربي جاي إيه ربي جون والله إلهي أنا ولا عبدنا لكن يا ربي وحن كل شيء يا intaan adduunyada joogayna marag baad iga ahayd oo adaa ila joogay oo ay arkayo in maqlaayay oo waxaan ku lahaa maqlaayay oo waxa igu sameeyeen u jeeday laakiin markii adduunyada adiga soo qaadayna adiga maaratan arkayay ee hadaan cadaabeysana waa adoomahaaga hadaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereyga nabi ciisa banka qiyaama uu oran doono ayu nabigeena muhammad alayhi salatu wasalaam ku saliya rasuulkeena ayu nabigeena muhammad alayhi salatu wasalaam naxariisu ummadiisa u naxariisanayo damqashu nabigu ummadiisa u damqanayo erayadaasu nabigu habeen ku soo celinay habeen dhan oo laha ya rabbi hadaad cadaabeysana waa adoomahaaga yaani quraysh maanto dhammaan quraysh ku jawlaynayay mid baan u ziyaaranayay majaalistoodan ugu tagayay fagaaraha ayaa kala hadlayay waan kulmiyay waan u bandhigay risaaladaadii waxay igu yiraahdeen waad arkayso waad maqlaysay hadaad cadaabeysana waa adoomahaaga hadaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereyga nabi ciisa banka qiyaama uu oran doono ayuu nabi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa rabbi innahunna adlalna kathiran min annas wa ibraahim alayhi salaam ayaa isaguna yiri ya rabbi asnaamtani adoomahaaga in badan bay lumiyeen xaqi ka weeciyeen faman tabi'ani fa innahu minni kaaniga iraaca ee aqeedadayda iyo diintayda iyo milladayda igu raacana ilaahu waa macayge aniga ka ilayel waman asani fa innaka ghafurur rahim ka ay caasi amarkayga diidana dhaafe naxariis badan baa tahay buu ka yiri ibraahim alayhi salaam aayadaas nabigu ku celceliyay ilaahay jibriil soo diru yiraahdo ya jibriil utag muhammad alayhi salatu wassalaam adoonkayga muhammad utag waxaad ku tiraahdaa war rabbiga uu og yahay maxaa la ooyaysaa markaasuu nabigu ya jibriil ummati ya jibriil ummadayda bal firs tadarruc waa kaas faadmo uma ooyayo safiya uma ooyayo awlaadiisa uma ooyayo عائشة ودتك وجود جعلا وما أويايو أبو بكر وأصحابته وجود جعلانا كليجي وما أوياي رسولك وحو أويا أمتي سودا يا جبريل أمتي وأمتي سوايو
من مالنتي نبينا الله صار عليه الصلاة والسلام إلى قيامها قف اللي قفك أدونك إيمانا يردن وأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمة الإجابة وأمة الدعوة مسلم كنا وأمة الإجابة مسلم وأمة الإجابة قال لنا وأمة الدعوة أمة دي دعوة اللي قارسين لها وقال لها ما أنت نقول عيارس سيدا كبدا نقول عيارس أن نكون أنو هاي سنو إني وحيستان إني الليبانين إني الراحيسانيان إني أقع ديبادو هايستا مي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون قرآنك إلى هاي كل شيء قرآنك ما هيستان راحو هرومر ما هيستان راحة دي أدقى هيستا أمني أدقى هيستا أرزاق دي حلاش أدقى هيستا النما دي أدقى هيستا دين دي حشوتك إيا كلا دنبيتك كبريسي أدقى هيستا دينتا حق إلهي كو شيغيسا حق والدك كو شيغيسا حق جارك كو شيغيسا حق إسلامك كو شيغيسا حق علمها كو شيغيسا حق صاحبك كو شيغيسا دينتي عدالة يا كلا دنبينتا إيا اسكور هينتا كو دسنيد أدقى هيستا أدقى إن حريست للربين النقوتنا وادن دسر عضوا الله السحري وعلينا يكا وحيستا تاسو لي مسلم إيمانت مدبا حشك الأسي السعودي مدبا حشك تقيي ورواديك حشك الأسي السعودي دعاء كون قلتني عرفيك وحصو سبيولي وقصة عظيم هاي محاكو قد دعايا عرورتي لبا جامعة دي ويكبح لي شكي هلان لبا اسكولا دي كون دعايا وفيزا دي بدا انو حريي إلهي كوانا انو فيزا هود بيريك دوفان يقول سو دعاي بيولي عرفك سو دعاي قلبي جاني الكوجرة أمدي لدوني أمدينا ونحرسته ودمقته أيا ولا إندهني واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ولا نصيحة وحنا قعما قصنا اللي نقول سحر موبايلك فيسبوك بالله سحري بلا يمكن عالم كمان تلقوا شيريي أمدي أردن أضيء إسلامي إنني المير عقول شيني قلبي جني قاتي أيا أمدي ما يحب اللي نقول سحري بل دقل وذا قال يا اسكور هيك ورم او وذا تشني او اسوري سني قال له سحر هل كلا دون يين اديغو نحريس نقطو نبينا صلى الله عليه وسلم تضرعي سوحوها يا رب امتي امتي يا رب امتي جبريل عليه السلام يا الهي صدر كيري يا محمد وحو رب العزه كيري إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إن أنكم سنرضيك في أمتك أمة دادا وكارا لنقلين دونا إن شاء الله وحد كرا لنقطايا أمة دادا كيالي دونا كوكونا ديبي مينا با إلهي يقول كوكونا ديبي مينا يعني واحد ذيك آخرة كدب قليا أمة دادا كما يالي مينا با سيدا جعشها إن أمة دادا وقبنو أيا كوكو قبننا ويان والرالي قلين إلهي ونبي سرالي قلين أيو ولا سوف يعطيك ربك فترضى والرالي قلين وياه هل النبي موسى عليه السلام مركو إلهي إلا مناجون يلي وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى موسى عليه السلام إن ربي رالي قليو وسو دقدقي لكن نبي محمد إلهي سيبك كله ولا سوف يعطيك ربك فترضى موسى عليه السلام وكيلها رب اشرح لي صدري إن رسالة هي دين قلبي صلى الله عليه وسلم إلهي بويديستي ولكن نبي محمد السون إلهي ويديسن أيا إلهي كيري ألم نشرح لك صدرك إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يا رب مالك قيامها إدتك الله صوص ساريو آبها قال لي مدي سهيقوه جنبولها نبي محمد إلهي بكيري يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا وأمالين إلهي نبي عيسى يا مؤمنين إلهي ونهو جنين نبي إلهي ما نبي محمد ورته قرآنك هو عجيب لفظك يا حرف النداء بصيغة النداء كما سأرورين بلد يا محمد
هل قرآنكم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح قد جادلتنا يا نوح إنه ليس من أهلك يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يا زكريا إنا نبشرك يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لكن قرآنك يا محمد كما تقول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها الرسول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم. قرآنك إلهي جل وعلا تشريف ونبي قيس الشرفايو يا أيها النبي كي أندورتيو يا أيها الرسول كي أنقو أندرتيو يا أيها المدثر كان ازدد يزدودوبيو ياسين والقرآن الحكيم. وتشريف هداد مقاش قرآنك والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى كن يدو يساقو بحيي وقو يديو وشرفين إلهي نبي محمد وشرف يويان نبي قاسا إلهي أمدي سنقدقي نبي الدارين كيله نبي أمنمكو فكريا نبي عالم كأودم قنيا من مالك إلا صوص ساري إلى ساعة قيامته أي إيمان يسو وحا بشر إيمان ينبي لها يا جبريل أمتي أمتي يا جبريل أمتي إنك أنا ما أنت مسلمين دي ما أنت حالته ذاك ورما دولة بلغوك كلا قيبيي قبل بلغوك كلا قيبيي قبيل بلغوك كلا قيبيي رير بلغوك كلا قيبيي إنني أبتغي بمدح لسكو قليي الدنيا تفرق أدوية أمد ويك كلا جيسا أدوية أمد أسكو مكانتو أمد إيمانك أسكو كانا أمد الدين أسكو كانتا أمد محبة إلهي أسكو كانتا أمد نمدا دين الإسلام كاسكو كانت أمد نمدا. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. تضرع النبي صلى الله عليه وسلم تضرع عند السحر ساعدها النبي يقول انجر يا رب يا رب ويا ليت أبي بكر محور انجر يسقنا محيه يديه يدليس عمر بن الخطاب أورنجري والشبر كدولة ما النقضة وهاي الله حسابي ما يشبر كقيامة وأبو بكر يا عمر يا ليتني لم تلد أم عمر لم تلد أم عمر ويدي ما حيود ليس أبو بكر بأركجر أور ضاقيا أور كمان اسكا هذا بورنجري لا حسابي ما يسقي تضرعوا وحلق السحر كوقت السحر ساس إله لم ناجونيين قبر صالح هذا ولو رجل الرحلة العابدة رحمة الله عليها هبين جنين كذا مركي وتمادو اسكو سوق رحسو اسكو سو هاجسو أي عشرة وديارسو أي كو رجل ياس أي كو رجلتي يا سيدي ما دي باهنته مركاس رجل ما يعاو أنه وندالنا هو اسكال جيب سنة ياي هذا يقول اسكال سيح مركاس أي فصح كقادته أي أركت ولي من نكيج إنه جمعي أي درك يقولنا بدنا أنت إسكندكتو أي در صوف أنت حدته أقل كمال ردوش سرعي كل هاي أنت أب حبيبي أورنجرتي إلهي قد غارت النجوم يا إلهي يجيو حدقيه وأكوه ويدعنا يا بقردنا البابدو دي هوستي كحدان هبين كينا أصوم دو بعدي قف كل جعلنا السرير تدوشدو كل كليوبي يا رب أنا وأديك أكو جعلها الباب الرحمة هذا يغفر بأورنجرتي يا رب أنا هذا أكو جعله ليتك ترضاه والأنام غضاب وليتك تحلو والحياة مرير يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. رابعة العدوية رحمة الله عليه هبينك يدنا ساعدها دنبيك عجرتي أي أورنجرتي ليتك ترضاه والأنام غضاب يا ليت وقيقي خسارة يا ربي أدوك ما ذرالي يقول نقطي دا مخلوقك لي هبعي عروضان يا ربي أدوك ما دي معاناتي ومناجاتك أقوم إيه معاناته وصلاة أقوم إيه معاناته وقرآنك أقوم إيه معاناته وطاعة أقوم إيه معاناته وذكرك أقوم إيه معاناته نولا الشيء انت قال هبعي يقول قراراتي يا ربي أدو هذا ذرالي يقول نقطي بيتري وحان قرنا يا وحوى اللي بيني حقاقيان وحا أدوك الدولة لنا والترابنا التراب بكون نقضاي gaariga quruxda badan la arkaysan waxa laga sameeyay turaab qasriga dhisar waxa laga sameeyay turaab
darka quruxda badan leh waa turaab gabadha quruxda badan leh waa turaab ilmahaagu waa turaab lacagtaadu waa turaab cuntada macaan waa turaab wa kullu alladhi fawqa turaabi turaabu yaa laytanii kuntu turaaba waxa lii waxa adduunka dulyaa loo dhan waa turaab turaabna waa lagu celin doonaa minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa baa ilaahay yidhi ayuha albashar basharkan hadlayee socdow adigaagan dhan jirhkaagan dhan lafahaagan iyo dubkaagan iyo dhiigaagan iyo malaxdaadan iyo uuskaagan ciiddaasaa naga samaynay baa ilaahay yidhi ciiddaana nagu celini doonaa mar dambana ciidda naga soo saari doonaa baa ilaahay yidhi idaa saxa minka alwuddu bay tidhi yaa rabbi waxaan garanayaa bay tidhi haddaad adigu iga raalli noqoto ood i jeclaato wax igu adkaanaya nolosha adduunyada maba jiraan sirta nolosha waa taas waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa umuurtiisa oo dhan baa ilaahay leeyahay waxaan ka dhigaynaa fuday nolosha kugu adkaan mayso qof kasta maanta warayso noloshaan fahmi lahay buu ku odhan faqiirkii u tag noloshaan fahmi lahay taajirkii u tag noloshaan fahmi lahay madaxii u tag noloshaan fahmi lahay milyoneerkii u tag noloshaan fahmi lahay kii miiga joogay noloshuu fahmi laayahay kii magaalo joogay noloshuu fahmi laayahay kii afrika joogay noloshuu fahmi laayahay kii qaaradda u tallaabay qaaradaha gaalada noloshuu fahmi laayahay kii dayaxa tagay noloshuu fahmi laayahay nin baa maalin dhaweyta qiso cajiiba ii sheegay 2017kii wadanadan la isku yidhahdo G20 wadan ee adduunka ugu warshada badan maalqabeenadoodii baa shir wadanka Geneva leeyahay iskugu yimaadeen dhakhtarku ka aqoon badnaa caalamkana way ku casuumadeen shirkii waxay yiraahdeen raggani waa raggii adduunka ugu dhaqaalaha badnaa nin walba keligii buu diyaarada leeyahay rag waxaa ku jira wadano dhan ka maal badan wadano dhan qaar baa 6 wadan ka maal badan 6 dawladood isku tagay buu qaar ka dhaqaale badan yihiin waxay leeyihiin laakiin raaxa ma hayno maxay yiraahdeen raaxa ma hayno dawooyin badan waad hesheen annaguna waxaan diyaar la nahay inaan nimaal gelino ee waxaad keentaan cimriga bini aadanka sidii loo biirin lahaa daawadeeda doondoon keena bay yiraahdeen cimriga waxa raaxadii naga qaaday waa dhimanaysaa taasaan hor taagan gabowgii waa la tacallaa bay yidhaahdeenoo dawooyin iyo sboor iyo waxbaan samaynaa bay yidhahdeen haye iyo cunto fiican iyo laakiin tanna hor taaganeen habeenkii ka seexan laanahay waa mawdkii xal u keena ma keeni karaan hor ma keeni karaan ma keeni karaan ma keeni karaan sirta nolosha adduunka ninka helay maanta waa ninka ilaahay macrifadiisa helay sida rabbigaa kaa doonaya adigu yeel nolosha adduunyada ilaahay baa ku fudaydin ma fahmi waaysid nolosha adduunyada markaas ajiib wallahi nabigeenu sallallahu alayhi wasallam meel yar buu naga tusay meel yar xadiis fi saxiixayn meel yar sunan saxaabi baa nabiga u yimid oo yaa rasuulallah markaan ilaahay aan baryaayo salligaaga ducadayda markaan afar u qaybiyo qayb baan ka dhigay ka waran buu ka yidhi markaa buu nabigu ku yidhi waa khayr haddaad ka ziyaadisaase kasii khayr badan bal xadiiska dhagaysta markaasuu saxaabiga yidhi saddex marka loo qaybiyo salligaaga qayb baan ka dhigi buu yidhi labana dee anna bashar baanoo muraadkaygan ilahay u sheegan markaa buu nabigu yidhi waa khayr fain zidta fahuwa khayrun laka haddaad biirisana kaa kasii khayr badan markaasuu yidhi saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagaan ka dhigi midna anaa baahidayda ilaah u sheegan waa khayr buu nabigu ku yidhi haddaad ka ziyaadisaase kaaga khayr badan haddana wuxuu yidhi sidaas markaasuu saxaabigii yaabo wuxuu yidhi hadduu arrinku sidaaba yahayba
ducadaydii dhannayd ba intoon halkaa iska dhigo ayaan salligaaga ku bilaabi salligaagana ku dhammayn markaa buu nabigu ku yidhi idan tukfaa hammuka wayughfaru laka danbuka buu ka yidhi haddii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhannayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa lii wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dembigaagina waa la dhaafay buu rasuulku ka yidhi sirta noloshu ma taagsan ma halkaas laakiin indhihii lagu arkayay allah ina siiyo indhihii khayrka lagu arkayay ee qur-aanka lagu arkayay ee salliga nebiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nebigu nasiiye lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga allah inoo furo waxau nebigu ninkaa ugu jawaabay bal dhegayso haddii ducadaadii dhannayd aad salligayga ku soo koobtid adduunkan dusheeda wixii hammi humuum aad lahayd hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata uu xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba waad heshay buu rasuulku ka yidhi aakhirana ma taqaanaa qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyo ilaahay waxa uu ka cabsi qabaa waa maxay war muxuu ka cabsi qabaa waa dembigina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi waa salligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halkaa ku jirto ee sirtii aakhiraba adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labadaay dhegaysta waa niigu celine waa mashkilad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumisa aad doonaysid ilaahay baa kuu daboolay mashaakilkiina ilaahay baa kaa faydi xaajadaadina ilaahay baa kuu qumin aakhirada hamiga ugu weynee qofka muslimka hor yaalla uu qof walba ka baqayana waa maxay waa dembigiina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi waa salliga nebiga fanuksir nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam salligiisaan badinaynaa salligiisu waa munaajaat culammada islaamka qaar waxay idhahdaan ma dikriga ilaahay la xusaayaa fadli badan mise salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam qaadi cayaad raximahullah fii kitaabi shifa bitacriifi xuquuqi lmustafa wuxuu ku sheegay salligaa la isku raaca inuu fadli badan yahay ma daliilu calaa dalika baa lagu yidhi waxay yidhahdeen culammadii fuqahada ahay ee ilaahay nuuraaniyadda uu siiyey subxaana allah markaad tidhahdid buu nebigu yidhi geed baa jannada lagaaga beeraa alxamdulilah markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa laa ilaha illa allah markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa allahu akbar markaad tidhahdid geed baa jannada lagaaga beeraa walaakiin salliga nebiga u soo noqo man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi biha 10 maraat ninka aniga mar igu salliya buu nebigu yidhi ee ilaahay naxariis iyo darajad ii weydiiya isagana 10 jeer buu ilaahay u naxariistaa geed jannada lagaaga beeray iyo 10 jeer oo ilaahay ku naxariistaa kaa fadli badan lidaalika nukthir salawaat annabi calayhi salaatu wasalaam waa inaan salliga nebigeena badinaa waa inaan munaajaat saacadaha dambeen ilaahay la munaajoonayno waa inaan nebigeena ku sallinaa calayhi salaatu wasalaam waa inaan wixii nebigeena ku weynaa innagana waa inaan nagu weynaadaan saalixiinta la fadhigooga iyo soonka in la laazimo sifaadkaasi qofku hadduu ku dadaala bay culimmadu leeyihiin biidni illaahi tacaala qalbigiisu uu nuuri wamujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano lala fadhiiso culummada la fadhiiso oo xalaqaadka ka qaybgal oo jamaacadada ilaahay darti u socdee maalkooga naftooda bixinaya diinta ku bixinaya ayay la fadhiisanayaan masaajid bay fadhiisanayaan maskiid bay jamaaca ku tukanayaan maskiid bay ummadda ugu yeedhayaan maskiid bay ku ictikaafayaan 4 bilood marka jamaacadada khaarijiintu ay baxaan ee dacwadda u baxaan masaajida sida loo camiray soo baranayaan ummadda maskiidkay ku soo xidhayaan iyagii maskiid bay ku xidhmayaan bixidan la baxayo muddada ha eegine muhiimadda loo baxayo horta eeg dad saalixiinaad raacaysaa saalixiina laa nuzaki cala allahi axad laakiin dad ku soo talagalay inay naftooda islaaxiyaan walaalahoodna ay soo baraarujiyaan masaajida mahjuurka ee maanta ummaddu ay ka hijrootay in masaajida ay camiraan wallaahi jamaacadada waxaad arkaysaa tuulooyinka markay ku baxaan masaajida qaarkood digada adhiga iyakaa ka xaadha digada adhiga iyakaa ka xaadha bari tuulo aan tagnay masaajidkii markaan tagnay imaamkii maskiidka sida ilmaha yar marka la yidhahdo iskuulkii dugsiga waa lagu fasaxay oo 7 cisho ciyaalka la fasaxay marka la yidhahdo siduu ilmuhu u farxo ama imtixaankiibaad baastay marka la yidhahdo siduu u farxo ayuu markuuna arkay ninkii sheekh uu farxay uu kacaa fadhiistay waa tuulo yar
markaasuu jamaacadda shaah u soo kariyey biyo u keenay maalintaan ka guuraynay tuuladiina si la yidhi ilmo yar la yidhi hooyadaabaa kaa dhimatay buu u ooyey waa ka tegi kari weyne sheekh maxaad loo ooyeysaa lilmaa ka daadanaysa wuxuu yidhi miskiinkeennii ooyi doona buu yidhi saddexdaa cishadii la joogteen salaadii jamci baad ii camirteen dadkii baad maskiidka ku soo xidheen xalaqadii baad asaasteen taariku salaagii baa maskiidka soo galoon anigu aan keeni kari waayey masaajidka innii ooyi doona buu yidhi haddaan awood yeelan lahaa maanta halkaasaan nagu dhexrin lahaa buu yidhi yaa muslim jamacadada khaarijiinta ee dacwadda alxamdulilah ininku waad inaad dhegaysataan baad u timaadeen laakiin anu culummada waxaan ku yidhi war niman yahow berigii horaa soomaalidu odhan jirtay wadaad wacdiyey waxisii baa xigta wadaad tabliiqa hadduu miskiid ka wacdiyana waxaa xigta ayaa ilaahay dartii u baxaya taa waad ka naxaysaa baan u malayn ya bixitaankaasi aad baad uga naxaysaan iska dhaafna markaa man yuwiinii man yansurunii xataa uballiqa risaalata rabbii walahum halkaa buu ka yimid bixitaankan qofka laga dalbayo inuu qofku ilaahay diinkiisa u gargaaro maaha wax mustaxdatho imika la keenay bal waa shay mansuusa weeyaan min bidaayati alamri buu nabigu ka bilaabay quraysh oo gaala ah oo mushrikiina buu nabigu intuu dul joogsado ku lahaa ayaa ii soo dhawaysanaya ayaa ii gargaaroo gacan isiin risaalada rabbi ila soo saaray ummadda hangaarsiiyo janno ugu ballan qaada 10 sannadood حج الجاهلية قريش مركي عربتو أي جاهلية حشك إيمان جرتي بني ابن عباس 10 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام حجيدا جاهلية دا من السو حج دا سو دكتي أيو النبي قصد أود الوريق جرول هيا إي سو دوين هيا إي كالمين هيا إي غرغاري أو دلقي سي جيسن أو رسالة الربي إلى الصو سارة إلى فيدين أو جنة وقو بلان قادا مركز قبائل كقاركود كو أورنجرين aaway cashiiradaadii halkay kaa joogaan dad hortood iyo kaa ibeeniyey bay oran jireen dad hortii iyo kaaba ibeeniyey marka maalintaasuu nabigu ummadda ka dalbay diinta in loo gargaaro waa ka qur-aankan ilaahay noogu sheegay nabi ciise falama axasa ciisa minhum alkuf muxuu yidhi qaala man ansaari ila allah haddii nabi ciise calayhi salaam xawaariyiintii isaga la socotay uu ka dalbay ayaa diinta ilaahay u gargaaray hadduu iyaga ka dalbay baa la yidhi ummadda nabi maxamed diinta inay ka shaqayso oo diinta u gargaartana ilaahay baa ka dalbay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah marka jamaacadada khaarijiinta 4 bilood bay baxayaan 4 bay baxayaan muddada ha eegine muhiimadday u baxayaan eeg wallaahi suma wallah naftooda inay islaaxiyaan bay u baxayaan inay culimmada iyo cilmiga soo jeclaadaan bay u baxayaan in salaada ay soo xafidaan bay u baxayaan in walaalkooga muslimka dayacan gacanta ay soo qabtaan oo masaajidda soo galiyaan bay u baxayaan waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war inninku dadkii wanaagsanaa ee masaajidda camirayay baa tihiin dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya in odayaa yiri oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dhibba ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inkaas gaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay quradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saal barqadaya way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaaraha ziyaarada waana qanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqada ee suufiyadu bariga reeraa waa ziyaaradii shaqabale keena orange imko iska dhamaataan malinba ana xaqiiqa Djibouti imko iska dhamaatay xaqiina mooyaan imko ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartiisa qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay
ilaahay dartii baan kuu soo buuqanno kuu soo ziyaaranay waxa duyana kuma sidno waxa duyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab wuxuu war dad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maanaba arkay buu la yaab ku noqotay maqto khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraadana ku jamaacad waxaan martiya magaalada Hiilayaan ka imanay dadka muslimiinta ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waan soo buuqanaynay dhalinyarada masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wal nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxnay ilaahayga marka kala hadlan cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray marka wuxuu hadalka adigu leedahay waligay ma maqal buuri waligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaa nadari sheeg lacag wadi igu diideen wax kala sheegtay waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidka joogaane inaad jamaacad u tagto soo salaantid bas intaas ka rabnaa ma intaas waan raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la soo shaadkii jamaacada uu soo raacay wuxuu salaad ma aqaan hal waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muusir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay يا زوجي لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم علي النبي مرقو هذا كلها دقال بودره دقال خيبر بو نبي بودره انه صباب يهود لكن النبي كذبها الله وحولي علي اوغو ميا لا دقال ما بو كيدي لا سيده ay ka noqonaya markaa buu nabi علي dhageysabo kaydi mid iyaka kamid oo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geeligiisa asas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa haddii dadku iyagoon lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay raadeen waranaku ma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaadii maghrib uu la tukaday bayaankii buu la dhageystay cishaayigii buu la tukaday cishaayigii intee soo kaxay miskiidkii keenan haddana salaadii fajr isagoo lugihiisa ku socdo miskiidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dambigii ku jirana ka dhaxbaxay tiisi baa timidoo ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وكي حديث النبي يقولها انت تاكين لك مركي النار توقعدو ايا إلهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا ايا الله هرمرين دانا اعماش الجنة الله وعين تضوان ما الموضوع عبادة يستي صدابا للرجل إلهي جنين وكو قليل لأن خاتمات بإله هباج حسن الخاتمة وشيء غالية أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال هذا شيء أيها الله نوشة إن مسلم أو صومالية لكن ما شاء جونو حجر 4 كيلومتر وابو قناي إن أضيع دادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر مركز ويا جماعة هالكيك حقا يضل كيمان كيمان محاوتي ما دين ضد كمسلمين هنا سووا زيارة بس شيء وخرج كيان يقبل حيا بالمال والنفس oo fiisaha wadankan lama helo si aad ku hesheen ilaahay baa bixiya rizqaaga haduu yimaado halkan waa dhiman ama cizi ku kale ama dulli ku kale maxaa doonaysaa nimka jamaacadii miskiidkaas ay joogan inaan raacdaan doonayno taanu miskiid xaddu ma tagaawada xaddu maalmaha kalena salaadaydana ilaahay baa og buuli laakiin mar haddaad bari ma joogtaan waa xadaha waa niima buuli
dalkii Soomaaliya warkiisa rabaay Soomaaliya haya kale Soomaaliya warkiisa waa lagu siinaa Soomaaliya islaamnimadan u socono u muuqatee afka Soomaaligu xiiseynaya hayayna mari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socda oday markii ay istuhudeen dadka Soomaalidu markii ay istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas markii hebel adiga la oran jiray maxaad ka shaqeysay imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood ee dariska ka dhaxayaan bartaa علاقة بين الدول مركز وكير حرير كهذه إله نجد حما برتا مركز ولمي صلاة يدبوا قلب مركز حرير كهذه إله نجد حما برتا مركز ولمي بروفيسور هذا جامعة ده نيدجا حرير كهذه إله نجد حما كهلان يكون ما يقانن مركز سالقول محمد برن بالقولي حديث كمان مقال النبي يقول يا هي أعمار أمتي ما بين 60 و70 عمر الغالب كأمة إذا النبي يقول وتضباطني لحدا أنت أود حيسا أذكر واحد لا دوري لحدا جربانة هي أنت سين لندن تابو كيدي صلاة إذا واحد لا قلب حرير كأذي له نجد حيانا والضعيف كون وحكود جنا وحات الحرير كما بيقانان سدي كلها تهيبو كيدي أو عقل جاجي رشد جاجي هذا الكثير والبصير يا جماعة دوتشري لكن نكى حبيك عشاء بركوتو كذا قريج يسيبو تجي صلاة دي فجر يسقوا علابتي وتو جماعة دوي مدي وعود هذا الكذا يقول ترى هذا محل كسر حكر ويجي هذا الكحل يقول ترى هذا وأكجيب سكر ويجي داعية مركون نقول ضد وناكسن الراعو ومد خير ورجينا يو ومد وناك كفي كريو هذا الجيس إلهي وحوق لنا يا تأثير سامين بو هذا الكاغو يالنا يا هذا سو إصلاحا يا أمدن إصلاحك كسو قيب قادنا إسا قيل هذا عن قيل إنه كبت بعد إنه يين دين تكوض الشقين ودن يود إن شاء الله وهذه لنا قد البين دين تأبحنا أنبحنا وإذا استنفرتم فانفروا بالنبي يقول هبيك الجماعة هنا مركز كسو قيب قال كلن كدينات بفضل الله عز وجل هبيك كده وتجمعه بان وفي رصدوا مساعد أبو حسام يا بهديته له زماننا دعوة waxay soo martay xilliha jamaacadu miskiidka markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwadu waxay maraysaa in maraakisti halka ay joogsato afka oo ijtimaaciyadii markii la yiraahdo halkan baa lagu qaban laba sano kadib meeshii yaraatay meel kale loo guuray meeshii way yaraatay hadda annaga Djibouti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaaci u horeeyay 92 200 qof ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaaci miskiidka markii lagu qabtay magaalada dhexda xirantay مسكيت كله وين بيت دولته كده ياخذ الدعوة دي هذا كينا أول حرمي كينا ولا جبحي بنان كي مقالة الله بحي بنان كي مقالة أنا سنة كان أفرتن كنا غفة كسوقا وش اجتماعي أفرتن كنا غف هرجع سنة وادوكتهين والخير كابع نوبة حيا خير كما قدر صنع خير هذا ده يستدين هذا ونكسن نقو شغال الدين هذا ونكسن بكسيف عن الله ينقو أنفع الله إنه دم دافع وصلى الله على سيدنا محمد.